madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Deni ayaa garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir ee Garowe ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble. soo dhaweynta waxaa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada mudane Abukaati Cabdicasiis Cabdilaahi Cismaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. sidoo kale waxaa qayb ka ah soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha golayaasha dowladda Puntland, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada Garowe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee caasimadda Puntland. waxaana markay soo gaadheen wafdigani magaalada Garowe kadib hoyga ay ka degi doonaan magaalada Garowe kula hadlay warbaahinta madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdilaahi Deni iyo waliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء iyo wafdiga ballaaran ee la socday maanta booqashada ku yimid magaalada Garowe dowladda Puntland waa ku faraxsanahay inuu ra'iisul wasaaraha ku soo dhawo Garowe. intii fursad fiican weeye in maanta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda wafdiga kala socday noo yimaadaan waqti gaaban weeye waa soo dhaweyn. إن شاء الله وحي ورر أنا وينو دمين بين الجيران كله مركا بلكين سود وهذا سود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها مبارك بنتلان مدحوين بحرينك بنتلان الزير هذا اللي بانضا غير بنتلان الزير هذا يحل بانضا فدرالك دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta xaqiiqdii farxad weyn ayay tahay inaan imaado hooyadii Soomaaliya Puntland. waa ku mahadsantihiin. waxaan mahad gaar u jeedinayaa shacabka Puntland gaar ahaan shacabka Garowe sida qiirada leh ay ii dhaweeyeen. magaaladan ma ahan magaalo markii ugu horeysay aan imaado, waa magaaladeydii oo muddo 14 sano ka shaqeynay. marka farxad iyo reereyn ayay ii tahay. wixii warar ah gadaal ayaan u dhiganaynaa. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha leh ee aad ii siiseen madaxweyne iyo shacabka Puntland. waa mahadsantihiin.